waxaa saake la horgeeyay maxkamadda gobolka Maroodijeex wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon halkaasi oo lagu doonayay in dacwadiisa lagu furo balse gudoomiyaha maxkamadda gobolka ayaana dacwadda ogayaasha waxa uu ka diiday dalabaadkoodii waxa uu ku sameeyay dhowr qodob oo kala ah kow in suxufiga xarigiisa aan loo marin sharciga amar qabashana aan lagu soo xidhin inaanu sharcigu dhuleedka lahayn dhageysiga dacwadda maadaama baaxadiisu ay u eg tahay gobolka Maroodijeex saddex in xitaa la horgeynin maxkamadda magaaladiisa oo laga xishooday in la horgeeyo afar maxkamadda sare inaanay soo saarin qaraar soo wareejin gal dacwadeed oo heerka darajada sare ah shan in nabarada uu qabo suxufigu la geeyo isbitaal si loogu daweeyo xaaladiisa dhaawac ee jireed ee soo gaadhay suxufiga Cabdimaalik Coldoon ayaana maxkamadda ka hor sheegay in dhaawacyada aysan soo gaarsiinin ciidamadu balse ay soo gaareen intii uu isagu isku dayayay inuu ka fakado ciidamada gudoomiyaha maxkamadda gobolka Maroodijeex ayaana sheegay in uu walaac ka qabo in booliisku uu ka diido soo jeedintiisa oo ay gudoomiyaha maxkamadda sare ka codsadaan in la amro in Maroodijeex lagu dhageysto kiiskan taasina aysan u wanaagsanayn laba sababood darteed kow inaan la ixtiraamin ku dhaqankiisii sharciga waajibaadka ikhtisaar dhuleed labo in ka dhalanayso in ixtiraam maxkamadda gobolka dhexmartay saddex in loo arko maxkamadda gobolka ku yaala inaanay lahayn awood ay kiiskan ku galaan taasi waxa ay u muuqataa yasmo afar ugu dambeyn waxaa foolxumo ah in qof sool ama sanaag laga soo xiray lagu yiraahdo Hargeysa noogu dhageyso kiiskiisa arrintaana in badan ayay nagu soo noqnoqotay ayuu yiri gudoomiyuhu wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon ayaana laba habeen ka hor ciidamada booliska Somaliland qabteen magaalada Burco mana ahan markii ugu horeysay ee xarigiisa loo geysto wariyahan oo caan ku ah samafalka dadka danta yar Cabduqaadir Cabdullaahi Warsame Galmudug TV